boqolaal qof oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ayaa dhawaan laga soo musaafiriyay magaalada Laascaanood xilli uusan jirin amar maxkamadeed oo sidaas dhigay ama eed gooni ah oo loo haysto dadkaas. Arrintan oo talaabo ceebeed noqotay ayaa u baahan jawaab ficil ah. haween bila dhamaystay oo ka mid ah dadkii laga soo saaray magaalada Laascaanood ayaa jidka ku dhalay, halka sidoo kale la xaqiijiyay geerida hal qof oo ka mid ah dadkaas oo uu asiibay xanuunka COVID-19. dadkan noloshoodii la barakiciyay, sharafkoodiina la dhaawacay, ma haystaan hoy oo waa laga soo saaray halkii ay guryaha ka dhisteen ama ay deganaayeen muddada dheer. waxaa laga soo tabiyay xanuunno safmareen ah, mana haystaan gurmad xagga caafimaadka ah. qaarkood waxay imaanayaan magaalo aanay weligood imaanin oo aanay aqoonin waxa uga soo horeeya. qaar ubadkoodii ama waalidkood ayay kala lumeen oo ay rabaan in la baadi goobo. qaar maskax ahaan ayay u dhaawacmeen oo waxay rabaan baxnaanin, halka kuwana ay rabaan in Somaliland go'aankeeda wax ka bedesho si ay ugu yaraan ula soo baxaan hantidooda. marka la eego baahiyaha tirada badan ee dadkan Soomaaliyeed haysta, waxaa muuqata in loo baahan yahay inay bulshadu muujiso isxilqaan oo dadkan loo sameeyo nafcelin iyo rajo cusub. dowladda federaalka ee Soomaaliya oo dadkan mas'uul ka ah ayaan ilaa hadda samaynin wax qorshe ah oo dib u dejin iyo gurmad loogu samaynayo dadkaas Soomaaliyeed ee ay habeenba magaalo hoyga siiso. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo hadda awoodii dowladnimada gacanta loo galiyay ayaa toddobaadkan cambaariyay falkan. Rooble mowduuc gooniya kama dhigan arrintan ee waxay ka soo gashay hadal jeedintiisii Baraawe. dad badani waxay qabaan in arrintani ay ka culus tahay abaarihii lagu bixin jiray waqtiga badan, laakiin ilaa hadda waxaa muuqata inay sahashanayaan madaxda dowladda federaalka ah. hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa dhawaan guddi u xil saaray xaaladda dadkan, laakiin hawshu ma muuqato wax Koonfur Galbeed kaligeed maareyn karto. waxaa weli la sugayaa tallaabada xukuumadda dhexe. inaanay dowladda federaalku qorshe degdeg ah iyo qondo u samaynin dadkan Soomaaliyeed ee lagu gaboodfalay ayaa noqon karta fadeexad weyn iyo mudnaantii marxaladaha taagan oo la hareer maray. madaxweyne Farmaajo ayaan weli ka hadlin arrintan. wuxuu marar badan sheegan jiray inuu yahay siyaasi shacbi ah oo raba inuu dhiso bulsho isku filan oo isjecel, laakiin waayadan dambe wuxuu u muuqdaa inuu iska tuuray shacabkii oo uu diiradda saarayo sida uu dib ugu soo laaban lahaa xafiiska. waxaa cad in baahi weyn loo qabo in dowladda federaalka ay isku xil saarto dib u dejinta, daryeelidda iyo nolol abuuridda dadkan la dulmiyey. maadaama aan ognahay tabarta dhaqaale ee dowladda federaalka ah, haddana dhinaca kale waxaan laga dhuuman karin waajibka saaran dowladda dhexe iyo awoodda ay u leedahay inay dadkan wax u weydiiso dalalka dhaqaale ahaan u taageera Soomaaliya. shacabkaasi waxay dhowrayaan dowladooda, adduunyaduna malaha waxay sugaysaa akhbaar dowladdeena ka timaada oo arrintaasi ku saabsan. haddaba ma aaminsan tahay inay dowladda federaalka ahi baraarugi doonto oo ay qaadan doonto kaalinteeda? maxay kula tahay adiga?